kadib markii ay si rasmi ah u soo shaabaxday in la isu furay isu socodkii bulshada Somaliland iyo Soomaaliya gaar ahaan ciyaaraha waxbarashada ganacsiga iyo wax kasta oo ka madax bannaan arrimaha siyaasadda ayaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Xidigaha Burco oo ka dhisan gobolka Togdheer kuna ciyaarta magaca dowladda hoose ee degmada Burco isla markaana ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee ugu awoodda badan Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ayaa waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee shaacisay inay safar ku tagayso caasimadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya halkaas oo ay ciyaaro saaxiibtinimo kula soo ciyaari doonaan kooxo ka dhisan magaalada Muqdisho. Kabitaano Ayaanle Cabdi Xaashi oo ka mid ah ciyaartoyda laf-dhabarta u ah kooxdaas kana mid ah kabtanadii soo maamulay oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaan ka waraystay safarka ay ugu baxayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. waraysigiina dhex marayna waxa uu dhacay sida tan. Kabitaano Ayaanle Cabdi Xaashi ugu horeyn ku soo dhawow telefishinka Badda Cas 24. Ayaanle warar baa sheegaya in kooxdaada Xidigaha Burco ay isu diyaarinayaan safar ay ku tagayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. bal faahfaahin naga sii in arrinta la xidhiidha warkaasi. محمد والله ما كنت هاي ما دام يكون هيتجاه برعتاي كحاجزين كويلة قبل الشمال لان جارهان كور كتير وهو مدري كنت بيجي وحي يسوي في سفرات شوتي يتوبيا كده واحدة صادح كلاين حنون كي كورونا مركز كده إنه كمل الشمال لان يسوماليا يعني حق سبورت كاي سفرين kadib markaa qorshaayagii ayaan ku darsanay inaan Soomaaliyana ku darno labadii dal hore u dhaxanay marka saxaabada Soomaaliya ka dhigay Ayaanle maadaama aad isu diyaarinaysaan inaad noqotaan kooxdii ugu horeysa ee kubadda cagta ee ka tagta Somaliland tagtana magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ma jirtaa ilaa hadda kooxo idin la soo xiriiray oo aad ku balansantiin inaad ku wada ciyaartaan. محمد بيشران كوحبدن باجرا كوحبدن لا soo xidhay baajira laakiin wali jirto hal koox oo qorsheyn maamul ka raadeen kooxda ayaynu la ciyaarayna laakiin waxa kale kooxabadan oo la soo xidhay maamulka kooxda Xidigaha Burco. idinka koox ahaan maxay idinka dhigan tahay inaad safar kubadeed ku tagtaan magaalada Muqdisho. محمد والله waxa weeye sport waa dhaxgal مشتحكم لأن Soomaaliya maadaama muddo dheer ugu dambeysay isdhexgalkii baa sii aaranaya in doonata hadiiba aad si nabada ku tagtaan magaalada Muqdisho soo dhaweyn nooceey ayaad ka filaysaan inaad kala kulmi doontaan se maxay tahay fariinta aad u direysaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya. محمد كل واحد شعرين يبغى سبورت بدأ عن كليان تدوين عن كسلنا وبعض سبورت كا يجينا تدوين من كسلنا فرنتا مكريانا وحوية Soomaaliya والله بدلوا سمن على سبورت سكول فركتا كمل حبنا نابو سياسة Ayaanle ugu dambeyntii Ayaanle hadii baad tagtaan oo ku soo ciyaartaan ma rajaynaysaan idinkuna in kooxa idinka yimaada Soomaaliya aad ku soo dhaweysaan Somaliland. aad baad u mahadsan tahay Kabitaano Ayaanle Cabdi Xaashi. aad baad u mahadsan tahay adiga badan marlabaadii saddexaad xamlaad Abdillaah. kooxdan Xidigaha Burco ee ku ciyaarta magaca dowladda hoose ee degmada Burco ayaa noqonaysa kooxdii ugu horeysay ee safar ciyaareed ugu baxda dalka Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay 1991 markaas oo Somaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale isla markaana ay xorriyadda dib ula soo noqotay. waa Maxamed Andar telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 magaalada Hargeysa.
markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso